bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadahan oo kale aad ka daawataan shaashada telefishinka qaranka gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda mudane Farxaan Aadan Hayba waxa uu sheegay inay dhameynayaan barnaamijka qaran ee shaqaalaha howlgabka ah iyo kuwa ku meel gaarka ah wariyayga Salmaan Hayba Lambad ayaa warkaasi noo soo diyaariyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Farxaan Aadan Haybe waxa uu sheegay dhameynayaan dhaqangalka barnaamijka qaran ee howlgabka oo ay ku abaal marinayaan shaqaalaha dalkan u soo shaqeeyay muddo dheer iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga waxaan ka cadeynayaa ilaahay idamkii January 2020 waxa dhaqangal inoo noqonaya barnaamijka qaran ee howlgabka ayaa dhaqangal inoo noqonaya 2020 sorry 2020 bisha January laga bilaabo dhaqangal bay inoo noqonaya intaana waa ka shaqeynaynaa hay'adaha khusayso iyo xeerarkii la dhameystiro taasina waa milestone kale waa guul kale oo hay'adaha shaqaalaha iyo hay'adaha dawladdu gaadheen xukuumadda madaxweyne musabbixina ay gaadhay taa waxaynu uga jeednaa in tobanaan kun oo shaqaali aan idhaahdo kumanaan shaqaalaha iyo ciidamaduba ay noqdaan wixii dalkan soo shaqeeyay u soo tabcay u soo dhididay u soo dhaawacmay u soo halgamay markii xafiisyadu daasad ahaayeen lagu fadhiisanayay iskuulada ee xafiisyadana aan qalin iyo warqad iyo fayltoon dhexool iyo miis raggii iyo dumarkii u soo halgamayay fadhiyay ee u soo sabreen mushaharna helahayni inay abaalkooda helaan oo la iska sii daynuune xaq ay helaan intay nool yihiin inta cimrigooda ka hadhay inay helaan in la siiyo wax la yiraahdo pension howlgab sida adduunka uu bixiyo inagoo raacayna standardska internationalka oo kuwa dabaqayna biidnillaahi tacaala geesta kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Farxaan Aadan Haybe waxa uu ka hadlay shaqaalaha ku meel gaarka ah waxaan rajaynayaa insha Allah in sanadkan noqdo sanadka aynu soo afjarayno wax la yiraahdo ku meel gaarka mushkiladda ugu weyn ee haysata hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradaha iyo hay'adaha waxa weeye waxa la yiraahdo ku meel gaar war waxa la ilmaad reeyalo ku meel gaarka waa soo afjarayna arintaasina xanuun bay leedahay cidii ku meel gaar ku joogta wasaaradaha hay'adaha dawladdu waa kala hufayna waa soo diiwaan gelinay dib baan u madax taabanayna waa xaqiijinayna waa sugayna imtixaan baan ka qaadayna dhaqaale dawladdu intan ka badan awood badan uma leh sanadkan haddana wax kasta oo suurtagala anagoo raacayna talada madaxweynaha waa u suurtagelinayna inaanu meel wax uga doono laakiin wixii awood loo waayo waxaanu jecelahay in 2021 ay noqoto inaan qof shaqaala oo aan imtixaan iyo tartan jaraa'idka lagu soo qoray idaacadda aanu shaqada dawladda imanin taasina waxay fursad siinaysaa dhalinyaradeena inay noqdaan qaar u tartamo oo aqoonta lagu tartamo anagu ka hay'ad ahaan oo ka shaqeynaa maxadka shaqaalaha dawladda oo runtii kaalin mugle ugu jira tayinta shaqaalaha dawladda waxaan aaminsan inuu kamid yahay hay'adaha waxbarashada bixiye hormoodka ah waxaan isku daynaynaa inay noqotaan ku amaanaya agaasimka iyo guud ahaan macallimiinta inuu kamid yahay meelaha ugu tayada wanaagsan ee waxbarasho bixiye maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland biidnillaahi tacaala Salmaan Hayba Lambad warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa munaasabad ku maamustay qaar kamid ah kooxaha kubadda cagta iyo hidaha iyo dhaqanka ee degmada 31 May ee magaalada Hargeysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Marwo Abiib Cabdi munaasabadan ay u sameysay kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee Dalmarban iyo kooxda kubadda cagta Isbaanishka ee heerka labaad oo ka tirsan degmada 31 May ayaa munaasabadaasi waxay ka qabsoontay magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay kooxaha ay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland ay ku maamustay casho sharafta waxaana uu gooraalkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ku hadlayay magacyada kooxdaasi oo kala Cumar Aadan مولد سياد محمود عبد القادر عمر أبتدون مصطفى أحمد عبده يو محمد عبد يوسف وحناي مهدنق بلارن وجهدين وزير كحيان كوزارة حنانة حولها يهرمرنت كلوميسيك السومالي وحنا كان هو مهدنقنا هذا ما يكون واحد إسبانيشكا وسيركا يوروب أبيب عبدي وسوق من قابسي سشرف لنا وسوق من قابسي كلن كان غالقا تاسو إنه إن مدابة كسوغني
haddaan nahay kooxda Isbaanishka anigoo ku hadlaya dhammaan afka kooxda Isbaanishka waxaan halkan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantahay mudane wasiir mahadnaqayaa waxa weeyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Wariye Maxamed oo runtii waxa weeyaan madashani iyadu waxa weeyaan qabaqabadeeda lahayd marka saddexaadna waxaan u mahadnaqayaa tiimkan aan ka tirsanay waxa weeyaan Isbaanishka runtii mahadnaq ballaaran ee wasiirka u jeedinaya waxa weeyaan halgankii iyo dadaalkii dheeraa ee waxa weeyaan waqtigii ololaha aanu soo wada qaadanay oo runtii qayb ka mid ah waxa weeyaan abaalkeedii ay celisay runtii wasiirka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u ballan qaadayaa waxa weeyaan ka tiim ahaan waxa weeyaan hawlihii aanu kula qabanay qaar kale oo ka waaweyn haddaad nooga baahato laftarkeeda diyaar baanu ku nahay waxaan leeyahay Yurubna waxaan leeyahay يعني wada shaqaynta aynu soo wada qaadanay maaha halkii ugu dambeysay meena joogin kulli barnaamij baynu soo wadnay inta aad xukuumadda ka mid tahay inta kaleba yani waanu kula shaqaynaynaa koox ahaan iyo dhalinyar ahaan baanu kula shaqaynaynaa mar walbana garabkaaga taaganay sida adigu garabkaaga aad noo taagnayd oo aad noogu mahadnaqday xafladana noogu soo casuuntay runtii madashan quruxda badan waanu kaaga mahadcelinaa sida fiican noogu soo casuuntay madashan waxaad ku soo casuuntay mid ka mid ah kooxaha ugu facaweyn degmooyinka Axmed Dhagax iyo 13 May kooxda Isbaanishka kooxdan oo asaaskeedu ay ka soo wareegtay muddo 10 sano iyo waxoogaaya waa koox runtii garab taagan wasiir imika oon aan ahayn oo waxa weeyaan doorashadii aad gashay xildhibaannimadii 2012 waxay ahaayeen dhalinyaradii haldoorka ahayd ee dhiigga ku shubtay runtii in badanna waxa weeyaan imikana ku garab taagan waa dhalinyar runtii karti badan dadaal badan waa dhalinyar runtii ay ka caagan yihiin balwadaha iyo waxyaabo badan oo dhalinyarada dib u dhiga runtii waxaan bogaadin iyo hambaliyaan u dirayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Wariye Maxamed Cabdi oo runtii caawa madashan ku casuuntay dhalinyaradii sportska ee halganka u soo galay xusbiga waxa weeye runtii maxaafidka ah ee kulmiye waagi ololaha markastana waxa weeye runtii ku suntan dhalinyaro waxa weeye runtii dhiirigelin iyo waxa weeye runtii in walibana loo abaal celiyo waxa runtii qaranka uga baahan sidoo kale dhalinyartu waxa weeyaan eegana aad baan ugu mahad celinayaa haday noqoto Isbaanishka oo Serbia waxa weeye Soomaaliland Wariye Maxamed Cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland ayaa iyaduna dhankeeda waxa isdul taagtay dulucda munaasabadan ay u sameysay kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee Dalmarban iyo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo waxaan kulankeenan wuxuu daaran yahay inaynu imika muddo kala maqnayn inkastoo maalin walba saragno wada joogno haddana waxaan aad iyo aad aan u doorbiday inaan mar kooxdan runtii Isbaanishka qalbigayga ka baxaynin ololihii markaan ku jiray xasuus badan aan ka hayo oo qalbigayga aad ugu jirta hadday tahay campaign markaan ku jirnay isgarabtaagoodii hadday tahay habeenkaynu campaign leenay waqtigii ay magaalada siraadi jireen hadday tahay waxyaabo badan baan ugu mahad celinayaa ilaahay baa mahad leh oo run ahaantii aanan dhalinyaro lahana aanan arag intii guddigii campaign-ka Hargeysa aan ku jiray run ahaantii inkastoo dhalinyaradeenu dad aad u wada sharaf badan ay yihiin haddana dhalinyaradan Isbaanishku aniga qalbigayga kama baxaan aad iyo aad baan u jecelahay waa dhalinyaro run ahaantii qiimo badan ololihii aan ku xasuusto haddaan eego shaqadoodii oo heerkii ugu sareeyay 13 May ka ciyaarayeen haddaan eego ololaha anagoon xitaa u dirin 4 galabnimo sidii xaafadda u siraadayeen haddaan eego iimaan qabkoodii ay nagula shaqeeyeen run ahaantii aad iyo aad abaal badan ayaan u hayaa dadkana waxa weeyaan qofkan ummadiisa dadka islaamka aanu mahad celin ilaahayna uu mahad celiyo diinta islaamka sheegaysa waxaan anigu jecelahay mar walba inaad hareerahayga joogtaan waxaan jecelahay inaad caruurtayda amba walaalahayga igu dhadhow eega yareer inaad noqotaan aad iyo aad baan idinku han weynahay mana noqonaysa xafladii ugu horeysay in iskugu nimi ha ahaato laakiin ma noqonaysa tii ugu dambeysay in iskugu nimi wax kasta oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aan ka tirsanahay laga heli karo awoodeeda oo u baahan tihiin waxaan idinka ballan qaadaynaa islakiin garab taaga hadii la yiraahdo gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee dalkaasi Ingiriiska ayaa taageertay go'aankii wadajirka ah ee gaadheen axsaabta qaranka gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee UK oo la hadlaysay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa soo dhaweysay heshiiskii saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ka gaadheen arrimaha doorashooyinka Soomaaliland waxaana sheegtay in Soomaaliland markasta caan ku tahay isku tanaasulka iyo dib u heshiisiinta waxaana sheegtay in arintani tahay arrin wanaagsan oo loo qaaday dhinaca horumarka iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa waxaadaladeedii kamid ahaa waxaan doonayaa in aan maanta ka hadlo oo aan hambaliyeeyo go'aankii shalay ay qaateen saddexda gudoomiye xisbi qaran
xafidahumullah baan leeyahay anigu waayo waa madaxdii qaranka allaha xafido ilaahayna ha waafajiyo markasta wuxuu khayrka ku jiro siyaasaddu wax weeyaan way murug badan tahay way rogrog badan tahay laakiin waxa weeyaan dadku marka wax la wadwado ee dhinac walba la iska soo horjeesto marka win-win situation wax la yiraahdo la isku raaco ee ay maanta saddexda gudoomiye xisbi qaran shacabka u daneeyeen kana turjumeen danta uu shacabku leeyahay dantaas oo ah doorasho in la qabto soona gunaanadeen khilaafkii muddada socday ayaan aad iyo aad u hambalyeynaya kuna faraxsanahay marka waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo suurto gelin doono 2020 dhexdeeda doorasho aan xagxagasho iyo dhibaato toona lahayn oo shacabku ay bislaadeen waxa weeyaan waxaan leeyahay oo kale muddadaasi maadaama ay maanta madaxdeedin taa isku raacday yacni komishanka qaranka iyo gudida farsamada komishanka iyo laga rabo iyo cidii ay khusaysaba inta ay hawsha ku daba jiraan waxaan odhan lahaa dadka u helay yacni ama aqoon yahanada ah ee caqliga u saaxiiba culimaha noqoto maadi iyo diiniba inay dadkeena wax tusaan wax educational programs oo dadka yacni waa dad aad u fiican Soomaaliland darku dadka wanaagsan ma jiro maantana dhalinyaradana almost 70 ama 65% waa dhalinyaro mutacalimiina in la baro uun danta cidda ay ugu jirto oo aynu ka guurno qabiil laakiin qof kastaaba aad interest-kaaga aad u guurto oo qofku yiraahdo maxaa igu jira siyaasiga aan dooranayo taayna bulshada la baro oo aynu iska deeno istabaguurkiyo wixii waayda tadawur ba adduunku yahay muddaynu ku soo jirnay waxaan weyn isu soo habeynay structure dawladeed baynu dhisanay weyn soo dadaalay deemaha inaynu xalkii u taagnaanay durmaanuun tunno waxaan doonayaa in aad looga hadlo la yiraahdo who is the right person aan dooran kara ee wax ugu soo kordhin kara way bilaadmu hadiye jeer xalku taagan inuu talaabo ka sii durku jecel yahay maadaama ay taasi jirto di waxa weeyaan xalkii inaan taagnaanayno aynu ka fikirno in aynu yacni shicibkeenu bislaado garaadkiisu bislaado nin walba life span ku gaaban yahay inta yareed kooban tahay maxaa sideed u heshaa wax wanaagsan oo adduunyada aad ula jaan qaada aad ma runtii waad arkaysaa maanta wadankeena waxa weeyaan in talaabo qaadna fiican dhaliisho kaliya ku sii mar walba hadaynu isdhaliilo dhaliish wax ma kordhiso laakiin waxa fiican in la yiraahdo halka waan aragnay maxaan uga sii gudubnaa marka dooranaysan gole degaan waa inaad ka fikirtaa gole degaan oo yacni magaaladaada nadiifin kara magaaladaada hagaajin kara facilitieski loo baahnaayo loo kali loo idmaday qaban kara u daacada aan iyagu islahayn ka shaqeysay u shaqeey dalka ah taa waa in laga fikira waynu ka guurnaa hadii reeraha hadii kale hargeysa sidaa un bay ahaanaysa daarta cusub ee la dhisaanay iyadoo wada boodhahun 2 sano kadib la arkaya laamigu sidaa uu iskaga ahaanaya in dhakhtaradeennu sidaa ahaanayaan mashaakilkeenu sidaa wada ahaanaya hadii aynaanu guurin dad productive oo aynaan ka fikirin waayo adduunyadu maanta wadamada aanu ku noolahay dee in hebel wax laguma doorto qabiil wax laguma doorto waxa lagu doortaa yaa wixii qabanaya keeba wixii qabanaya keeba aqal lagu tuhmaya keeba lagu tuhmaya daacadnimo keeba lagu tuhmaya hatta maalku uu soo galiyaayo de wax weeyaan adduunyadu waxay doortaa dadka soo sharxa waa dad wada baac mushtaraho markay iyagu noloshoodii successful ku soo noqdeen ay deedna yiraahdeen bulshadaanu qaybta noo hadhay wax u qabanayna wararka naga soo gaadhay gobolada dalkana waxa ku jira barkan oo muddo ka socday hotel Maasoor ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa ka qayb galay xubno ka kala socday shaqaalaha kala duwan ee hay'adaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale aqoonyahanka gobolka Togdheer waxaana fulinaysay shirkadda badbaadinta khataraha dabka ee Somaliland Fire iyadoo ay maalgelisay hay'adda GIZ gudoomiyaha shirkadda badbaadinta khataraha dabka ee Somaliland Fire Maxamed Xaaji October ayaa faahfaahin ka bixiyay tababarkan iyo muddadii uu socday waxaan halkan maanta uga mahadnaqayaa ilaahay mahadiina ah in maanta ay tahay maalin farxad leh shirkadda Somaliland Fire Safety oo ah inaan maanta magaalada Burco aan ku qabanno tababar ku saabsan gargaarka degdega ah oo anagoo ku qabanayna magaca hay'adda GIZ taasoo sharaf noo ah inaanu dad badan oo ka kala socda hay'ado badan oo ay GIZ soo qaban qaabisay halkan ku siino gargaarka degdega ah iyo xaaladaha ay kala duwan ee ay marxaladaha dadka kala ka caawin karaan anagu haddaan nahay shirkadda Somaliland Fire Safety waxaanu maanta aanu siinay shaqaalaha hay'adaha ee lagu tababariyay hawlahaas oo dhan waxaanu ku tababarnay gargaarka degdega
iyo xaaladaha waaqiciga waqtiga ay la kulmaan immigrationka gargaarka degdega ay u fidin lahaayeen si fiican ayaanu ugu faa'iideynay iyaguna nooga qaateen aad baanu ugu mahad celinaa sidii wanaagsaneed ee ay uga qayb qaateen tababarkaas sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubnihii ka qayb galay tababarkaasi oo u mahadnaqay shirkadda badbaadinta khataraha dabka ee Somaliland Fire waxaana ka warrameen aqoontii iyo khibradda ay ka faa'iideysteen muddadii uu socday tababarkaasi waxa soo kala xusub mudan halkan mahad celiyaduna Somaliland Fire oo ruuxantiina maasdaxaadiina siisay trainingkii ruuxantii isa train aad u qiimo badan oo ka faa'iideysanay first aid-ka oo dadka mahaajida ku dhawaday dhibaan la koonta ma dhiba kulmo hanaankii loo gacan siin lahaa sidii waxaan ku looga hortagi lahaa inaan aafado halka taanta dhaafin dabka saa loo xakameeyo intaba ku jirtay maantana waxaanu ku jirnay Somaliland Fire Service oo ilaa saaka ilaa saacada tababar aad u fiican oo qaali ah oo safety and security leh oo gurigaaga ilaa iyo halkii kale aad joogtay dhibaato kugu soo gaadhaba maxay ahayday tababarkaas ayaa la nagu siiyay mid aad u qaaliye buu ahaa ilaa guriga iyaga iyo ilaa banaanka waxa ka dhacay insha Allah ayaanu safe garayn doonaa mar labaad waxaan u mahadnaqayaa Somaliland Fire Safety oo iyaguna noo qabtay first aid oo runtii si fiican aanu warbixin fiican iyo qalab fiican runtii guddoonsiiyay shahaado quality leh Khaliil Barrawran TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco daawadayaal halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland xaruntiisa magaalada Hargeysa saddex ciidamada wadanka Turkiga ka mid ah ayaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo ay geysteen ciidamada maamulka Suuriya taasoo ka dhacday waqooyi galbeed ee Suuriya sarkaal sare oo Turki ah ayaa sidaas sheegay dhowr askari oo kale ayuu dhaawac culus ka soo gaaray weeraradaasi ka dhacay gobolka Idlib ee waqooyiga dalka Suuriya barasaabka gobolka Hatay ee wadanka Turkiga Raxmed Dogan ayaa sidaas u sheegay warbaahinta waxa jira oo kale warar tirada dhimashada intaasi ka badanaya ciidamada Suuriya oo bartaaro Ruushka ayaa waxa ay isku dayayaan inay fallaagada ay taageeraan ciidamada Turkiga dib uga qabsadaan gobolka Idlib madaxweynaha Turkiga ayaa weerarka kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id oo heer sare ah Recep Tayyip Erdogan ayaa ku goodiyay inuu weerari doono ciidamada dawladda Suuriya haddii aanay joojin ruqaansiga ay soo wadaan hase yeeshee dawladaha Suuriya iyo Ruushka ayaa diiday inay dib uga gurtaan goobaha la kala joogay waqtigii xabad joojinta ee 2018 Ruushka ayaa waxa uu Turkiga ku eedeeyay inuu ku xadgudbay heshiiskii xabad joojinta 2018 maadaama uu fallaagada ku taageeray madaafiic hay'adda ka shaqeysa xuquuqul insaanka Suuriya ee uu fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in ugu yaraan 34 askari oo Turki ah lagu dilay weerarkii cirka ee habeennimadii Khamiistii dhacay ciidamada dhaawacmada ayaa waxa dib loogu celiyay dalka Turkiga si halkaas loogu dabiibo sida uu sheegay sarkaalka u hadlay Turkigu isku dhacyadan ugu dambeeyay ayaa yimid kadib markii fallaagada oo Turkigu taageero ay sheegeen inay Khamiistii ciidamada dawladda Suuriya ay dib uga qabsadeen magaalada istiraatiijiga ah ee Siraqib dagaalka ka soconaya gobolka Idlib waxa uu horseeday inay guryahooda ka qaxaan ku dhawaad 1 milyan oo qof oo reer Suuriya ah tan iyo bishii December qaramada midoobay ayaa iyaduna sheegtay in hadduu dilaaco dagaal toos ah uu dhiig badan ku daadan doono wakaalada Reuters oo Khamiistii soo xigatay sarkaal Turki ah hadalkiisa ayaa sheegtay in Turkigu uu go'aansaday inuu dabciyo ilaalada xuduudihiisa oo aanu qaxoontiga Suuriya ka hor istaagin in Yurub galaan wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegtay in weerarkaas kaga jawaabtay inay garaacday bartilmaameedyo uu leeyahay maamulka Suuriya Ruushka ayaa diiday baaq uu u soo jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagu dalbanayay xabad joojin bini'aadanimo oo laga hirgeliyo waqooyiga Suuriya daawadayaal waxaad leenahay jimcaan wanaagsan waxaana intaasi ku soo afmeeraynaa warka hore ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland intaanu ku kulmi doono warkan warka xiga aniga akhyaarta kale igala qayb qaadatay diyaarinta iyo duubidda warku waxaan dhankayga idinku dhaafaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh